Dadku xoolo maahe, xero aad ku oodeen. Dadku xoolo maahe, xero aad ku oodeen. Xaq waxaanu leeyahay, xag kastaba u kicitimo. Xaq waxaanu leeyahay, xag kastaba u kicitimo. Meeshan waxaan la wadaagayaa farxadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan soo deynta la soo daayay walaalkeena Cabdimaalik Muuse Coldoon oo xorriyadiisii maanta dib u helay. Walaal Cabdimaalik, waxaan fariintan iyo dabaaldega kaaga soo dirayaa caasimadda dalka Kenya, Nairobi. waa ku garab taagneen intaad xirnayd oo kusoo duceynaynay, haddana sidii baan ku garab taagannahay. waa aniga iyo kooxdayda Koofi Gaduud iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii. waxaan ku leenahay halganka halkaas ka sii wad. waxaan dareemi karnaa ulajeedka maanta soo deyntaada loogu soo aadiyey, maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu furahayey khudbadna ka jeedinayay kal fadhigii 7aad ee baarlamaanka 10aad ee federaalka Soomaaliya. waa fahmi karnaa ulajeedkooda waxaa weeye in saameyntaada la qariyo, soo deyntaadana aysan dad fara badan ka war helin, laakiinse kuma guuleysan doonaan. waxaa dhici doonto hawsha waagii doorashada 78kii iyo dagaalkii 77 markuu isku soo aaday uu ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha dalka Soomaaliya oraahdii caanka noqotay oo taariikhda gashay oo ahayd gacanna qorigan ku ridi doonaa, gacanna doorashada uga qayb geli doonaa. hadda waxaa weeye gacanna shacabka Soomaaliyeed waxay ku dhageysanayaan khudbadda farmaajo, gacanna waxay hambali ugu soo dirayaan soo deyntaada, wayna kula dabaaldegi doonaan. aad baan u mahadsantihiin. asalaamu calaykum.